beertan oo ah mid lagu xanaaneeyo shinnida malabka soo saarta ayaa sanadkiiba 2 mar soo go'da waxayna soo saartaa malab fara badan. Malabkeeda waxaa loo suuq geeyaa gudaha dalka iyo dibadiisa. Muddo 13 sano ah ayuu Jaamac Yuusuf Warsame beertan ku xanaaneysanayay shinnida oo mararka qaar halis ku ah nafta bini'aadamka, iyadoona ay ka dishay ilaa 4 halaad oo uu lahaa. ku dhawaad 200 sanduuq ayaa hoy u ah shinnida, kuwaas oo sanadkiiba soo saara ilaa 200 oo kiilo oo malab ah. Marka laga yimaado malabkan oo la geeyo qaar ka mid ah gobolada dalka, waxaa jira dad beerta malabka ka iibsada kadibna u sii dhoofiya wadamada khaliijka si ay uga macaashaan. Jaamac Yuusuf Warsame maamulaha beertan oo u waramay warbaahinta SBC ayaa horaantii sharaxaya faa'iidada ay leedahay dhaqashada shinnida. Shinni ahaan marka laga hadlayo inta faraca bini'aadamku leedahay bay faraceedu weeye, way kala wanaagsan tahay, way kala irsiq badan tahay, way kala hidasan tahay. Muxuu ahayto runtii sanado fara badan ayaanu la daalaa-dhacaynaa aanan aqoon fiican u lahayn, laakiin sanadihii dambe waxaanu ku noqonay khabiiro oo inaanu fahanno sida loo dhaqo, sida loo guro, sida looga faa'iideysto waxay u baahan tahay. waxaasoo dhan hadda waxaanu ku noqonay khabiiro maadaama 12 sannadood aanu ka shaqaynayno beeraynay. Shinnidu waxaan yahay nafley kasta waxay u baahan tahay gabaad inay wax dugsi hesho, harna hesho. halkan waxaa loo dhigay meesha tan mar ubaxi bay ka helaysaa. waxaa dhulkan hadda aad arkaysa marka roobka ku doo iyo marka ay jiidaalka tahayba intaasoo 100 iyo 1000 oo geed bay leedahay ubaxa saasi badnaadeen marka roobka ku doo. marka halka ka waxay ka helaysaa harkii, waxay ka helaysaa ubaxii, waxay ka helaysaa dugsigii. faa'iidooyinkaas ayaanu halka kan muxuu ahayto ugu doorbidna inaanu ku dhaqno. waqtiyada laga helo malabka waa waqtigee? annaga shinnida iyadu waxa weeyaan waa natural maaha sanaaci maaha. shinniya way jiraan 2 bilood iyo bil iyo markay joogaan wax laga gurto malab laga soo saaro way jiraan. shinnidaasi waa shinni warshado muxuu ahayta awlalka ama hilibka shinnidu ay malabka ku shubto warshada u sameeya. waa maartay waa sanaaci, laakiin tayadu waa natural. hilibka ayadaa samaysanaysa, ayadaa shaqaysanaysa, waa la ilaaliyaa keliya, waa la xafidaa. maartay quraanjada iyo dhuurcasada waxaas baa laga ilaaliyaa. adiga 6 bilood ba mar baanu malabka ka helaa. halkii sanadkii 2 jeer ayaanu malabka gurnaa. haddaba mulkiilaha beertan lagu xanaaneeyo shinnida ma siiyaa dhalinyarada tababar ku aadan xanaaneynta shinnida? waa kan isagoo ka jawaabaya. walaahi su'aashaas aad muhiim weeyaan, waa runtaa. in badan baan waxaan ku yiri shinnida aan tababar baan bixinayaa. dhalinyaro fara badan baan tababarayaa si ay shinni u beeraan. shinnida haddii la beero 3 faa'iido laga helayaa. 1 way tarmaysaa, sababtoo ah haddii hasha ama saca ama rida neefkay dhashaba laga dilo, laga bireeyo, laga qalo, xoolihii ma tarmayaan, ma tarmayaan. marka shinnidii markay joogto 8 bilood, 9 bilood, 10 bilood shinni fara badan ayaa ka baxaysa. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemani, TV-ga raadiyaha SBC, deegaanka Jalam ee gobolka Nugaal.